Assalaamu calaykum akhyaarta. Waxaanu ka hadlaynaa waa maxay faa'iidada ay leedahay dhiirigelinta. Inaad mar walba aad tahay qof dhiiran waa wax adiga kuu fiican oo naftaadana muhiim u ah. Marka mar walba waa inaad heshid dhiirigelin si aad u gaartid meesha aad rabtid ama wax aad tigsanayso. Qofka bini'aadankana waa u muhiim inuu uu sameeyo dhiirigelin ama in loo sameeyo dhiirigelin. Qofka haddii aad dhiirigelin u samaysid macnaha waxa niyad buu haynayaa inuu wixii sii wado. Haddii shaqo laydin diro adiga iyo qof kale oo uu qofka kale kaa dhiiran yahay marnaba isku mid noqon maysaan, sababtoo ah isku wax xitaa soo saari maysaan, xitaa shaqada isku si u qaban maysaan. Mar walba qofka dhiiran wuu kaa dadaal badan yahay adiga. Marka si aad u dadaashid oo naftaada aad u heshid dhiiranaan, mar walba ku xirnow inaad dhiirigelin inaad samayso, inaad ku xirnaatid waxyaabaha adiga ku dhiirigelinaya, inaad ka fogaatid waxyaabaha adiga hoos kuu dhigaya ama kugu noqonaya caqabada oo wax aad samayn lahayd kaa hor istaagaya. Marka waxaanu ka hadlaynaa waa maxay faa'iidada ay leedahay dhiirigelintu. Sideedaba haddaad maqashid macnaha qofka ku dhiirigelinaya waxaad u ogolaatay inuu dabeecadahaaga inuu bedelo. Marka anagu haddaan nahay dhiirigeliyaal ama dadka wax dhiirigeliya, dadka dabeecadahooda ayaan bedelnaa. Dadka waxaan mar walba jecelnahay inaa wax wanaagsan oo ayaga naftooda horumarinaya inaan u sheegno. Marka waxaan idin sheegayaa faa'iidooyinka ay leedahay dhiirigelintu. Lambarka koowaad, horumarinta kartidaada. Mar walba dadka dhiirigeliyaasha ah waxay kuu sameynayaan inay horumariyaan kartidaada, sababtoo ah waxay kaa dhigayaan qof firfircoon. Mar walba waxaan jecelnahay inaan dadka aan u sameyno wax ayaga macnaha dhiirigelinaya ay horey u socon karaan. Marka dadka dhiirigeliyaasha ama dhiirigelintu faa'iidada ay leedahay waxay tahay inuu qofku kor u qaado kartidaada. Lambarka labaad, hal abuurkaaga. Mar walba oo aad ku xirnaatid dhiirigelin ama aad dhageysatid waxyaabaha dhiirigelinta waxaa kordhaya fikirkaaga iyo hal abuurkaaga. Mar walba waxaad isku dayaysaa inaad samaysid fikir iyo inaad la timaadid hal abuur. Marka faa'iidooyinka ugu waaweyn uu leeyahay dhiirigelintu ay leedahay waxaa ka mid ah inuu qofku sameeyo fikir cusub ama inuu qofka fikirkiisa hore u bedelo. Lambarka saddexaad, dejinta yoolal. Mar walba oo aad tahay qof dhiiran, mar walba oo aad tahay qof mar walba jecel inuu is dhiirigeliyo oo waxyaabaha dhiirigelinta uu ku xirnaado. Mar walba qofka diyaar wuxuu yahay inuu dejiyo yoolal, wuxuu jecel yahay inuu noloshiisa u dejiyo qorshe. Lambarka afraad, kobcinta danaha. Mar walba oo aad tahay qof dhiiran ama qof dhiirigelinta dhageysta, mar walba waxaad tahay qof danihiisa mar walba ka adag ama mar walba jecel inuu waxa uu sameynayo inuu daneeyo oo niyad u hayo. Marka inaad tahay qof dhiiran ama qof dhiiranaantu waxay kuu sameynaysaa inaad noqotid qof wixii daneynaya oo niyad mar walba u haya. Lambarka shanaad, samaynta qorshaha. Faa'iidooyinka ay leedahay dhiirigelintu waxaa ka mid ah qofku mar walba inuu sameeyo qorshe, uu qorshe yeesho. Ma jiro qof dhiirigelin sameeya ama dhiirigelin dhageysta oo bilaa qorshe ah. Dhiirigelintu waxay kuu sameynaysaa inaad qorshe yeelatid. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, ha naga ilaawin inaad noo saartid subscribe. Mahadsanid.